أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري أجمعين. ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله waxaan idinku bushaaraynaya idinkuna tahniyadaynayaa bidukhuuli shahri ramadaan inay noo soo gashay bishii ramadaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina gaadhsiiyey kamaa kaana nabiyuna calayhi الsalaatu wasalaam yubashiru asxaabahu bidukhuuli shahri ramadaan siduu u ahaa rasuulkeenuba calayhi الsalaatu wasalaam mid saxaabadiisa ugu bushaareeya soo gelitaanka bisha ramadaan xusuusiyana barakooyinka iyo khayraadkay xambaarsan tahay iyo fursadaha qaaliga ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa u geliyey. wuxuu wariyey alimaamu axmed raximah اllah can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya calayhi الsalaatu wasalaamu kana yaquul qad jaakum shahru ramadaan waxaa idin soo gashay oo idin soo gaadhay bishii ramadaan shahrun mubaarak bil ilaahay uu barako geliyey oo sabab u noqota khayr fara badan oo addoomuhu dhexdeeda ay helaan kataba allahu calaykum siyaamah ilaahay wuxuu idinku faral yeelay bisha ramadaan soomkeeda fiihi tuftaxu abwaabu ljinaan wa tugallaqu fiihi abwaabu ljaxiim albaabada jannooyinka bisha ramadaan la furaa waxaana la xidhaa albaabada naarta wa tugallu fiihi shayaaiin waxaa la xidhxidhaa shayaadiinta fiihi laylatun khayru min alfi shahrin man xurima khayruhaa faqad xurim waxaa bishaa ku jirta buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam habeenka khayr badan kun bilood habeenkaa khayrkiisa qofka ka qada dhab ahaan waa qof qaday weeye khayr iyo wanaag oo dhan ka qaday. ayuha almuslimuuna cibaad allah bishii ramadaan inay kuu soo gashay adiga oo nool oo ka mida dadka caafimaad qaba ee soomi kara waa nicmatun min allahi cadiima waa nicmo ilaahay kugu nicmeeyo aada iyo aada u weyn oo waajib ay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad uga mahadnaqdo si uu ilaahay kuu waafajiyo ka faa'iidaysigeeda wa hiya ayda fursat mubaaraka likulli man araada allahu lahu lkhayr waana fursad barakaysan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u fududeeyo u yeelay qof kastoo ilaahay khayr uu la doonay. ayuha almuslimuuna cibaad allah ina اغtinaama shahri ramadaan yactamidu calى halaaثati asbaab ينبغي لكل مسلم أن يتنبه عليها ويتذكرها ويذكر غيره بها bisha ramadaan qofku inuu ka faa'iidaysto oo ka mid noqdo kuwa guulaystay ee macaashay ee faa'iiday. arrintaasi waxay leedahay 3 rukun waxaanay cuskanaysaa ay ku tiirsan tahay 3 sababood. السبب الأول يا عباad الله sidqu lcaziima sababta koobaad ee asal u ah qofku inuu bisha ramadaan ka faa'iidaysto waa in qofka muslimka ah ee bisha ramadaan ay u soo gashay uu la yimaado go-aan dhaba oo fiican. arrimo wanaagsan qofku waa inuu go-aansado oo uu si dhaba u doono oo qalbigiisa ay ka soo go-aan. falcaziimatu ya cibaad allah aslu kuli qowli wa ficli wa mabda'u kuli khayrin go-aanka wanaagsani waa waxa asal u ah ee uu ka farcamo hadal kastoo wanaagsani waa waxa uu ka dhasho ficil kastoo fiicani waa bilowga iyo waxa horseed u ah khayr iyo wanaag oo dhan. walihada kana nabiyuna calayhi الsalaatu wasalaam yas'alu rabbahu alcazimata cala rushd nabigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay weydiisan jiray inuu ilaahay ku arsaaqo go-aan iyo doonis uu u yeesho wanaagga
iyo khayrka oo dhan. ayuha alcabdu lmuslim, xaasib nafsaka watafaqadha was'alha, naftaada xisaabi, arrimaheeda baadhbaadh. waxaad naftaada weydiisaa maa hiya caziimatuka wa anta fii catabati ramadaan, waa maxay go-aankaagu adoo bishii ramadaan catabadeeda iyo albaabkeeda taagan. hal cazamta ya cabdallah cala atawbati ila allah walinaabati ilaa rabbik wa tagyiiri xaalik wa islaaxi umuurika wa shu-uunik? ma go-aansatay addoonka ilaahayow si bishan cibaadadeedu ay kuugu fududaato, ilaahayna uu kaaga aqbalo inaad ilaahay u toobad keento subxaana wa tacaala, oo khaladkaaga oo dhan aada saxdo, fogaanshahaad ilaahay ka fogaatay aada dib uga soo noqoto, oo aada arrimahaaga hagaajiso, oo aada go-aansato inaad xaaladaada beddesho, oo ta wanaagsan mid kasii wanaagsan aada u beddesho, ta xunna mid wanaagsan aada ku beddesho. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala inoogu baaqay xaalad walba inaynu ilaahay usoo noqonno. watuubuu ila llahi jamiican ayuha almu'minuun lacalakum tuflixuun. mu'miniina ilaahay u toobadkeena si aada u guulaysataan adduun iyo aakhiraba. qof walowba naftaada xisaabi, xaalkaagana dib u eeg, wixii kaa khaldanna sax. wuxuu inoo sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan markay soo gasho inuu dhawaaqo mid amarka ilaahay ku dhawaaqaya. wuxuu idhaa yaa baaqiya alkhayri aqbil, warkii khayr doonayo wakhtigiisi waa taagan yahe soo qaabil oo u soo jeeso. wa yaa baaqiya shari aqsir, shar iyo xumaan qofkii doonaya ama ku fooganaa oo gaabso, ka hadhoo toobadkeen. ma go-aansatay yaa cabdallah tahdiiba nafs, naftaada inaad hufto ood haadiso, oo wixii xun oo dhan aad ka saarto, oo aada taskiyadaysood nadiifiso, adigoo u hoggaansamaya amaba se ku dhaqmaya qowlka ilaahay uu yidhi qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha. ayuha alcabdu lmuslim, go-aan ma kuu tahay bisha ramadaan inaad soonto iimaanan waxtisaaba, adigoo rumaysan faralnimada soomkaas, isla markaana yaqiinsan waxa ilaahay u ajar u sheegay ama rasuulku u sheegoo dhan in laga helaayo, adigoo ilaahay subxaana wa tacaala wax kaga doonaaya, adigoo mar walba naftaada xusuusinaya qowlka uu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam man saama ramadaana iimaanan waxtisaaba gufira lahu maa taqadama min denbih. qofka ramadaan sooma iimaan awgii u sooma iyo ajar doon, dembigiisii hore ayaa loo dhaafaa. ayuha alcabdu lmuslim, ma go-aansatay bisha ramadaan qur-aanka inaad la noolaato? fa inahu shahru lqur'aan, waa bishii ilaahay qur-aanka uu soo dejiyey. shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan hudan linnaasi wabayinaati min alhuda walfurqaan. waa bishii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam malaku jibriil uu qur-aanka la subcin jiray. waa bishii dadkii wanaagsanaa inaga horeeyey ay ku dadaali jireen marar badan qur-aanka inay khatimaan oo ay dhammeeyaan. waclam ya cabdallah ana qiraa'ata alqur'aan afdalu maa yudkaru bihi rabu lcaalamiin. waxaad ogaataa addoonka ilaahayow, akhrinta qur-aanku wax ilaahay lagu xuso subxaana wa tacaala, ilaahay lagu baryo waa waxa ugu weyne ugu sareeya. falqur'aan huwa kalaam ullah fahuwa afdal lkalaam wa asdaqu lxadiid wa axsanu lkalaam. ayuha alcabdu lmuslim, qur-aanka markaad akhriyaysa macnihiisa u fiirso oo ku dadaal inuu qalbigaaga iimaan geliyo, khushuucna uu kuu kordhiyo, sida ilaahay subxaana wa tacaala uu amray afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha. ayuha alcabdu lmuslim, bisha ramadaan waa bil qofka ilaahay khayr la doono ku caawinaysa toosnaanta. ma go-aansatay inaad ka mid noqoto min cibaadi illaahi almustaqiimiin, addoomaha ilaahay ee ilaahay diintiisa ku toosan.
sharciga ilaahay ku camal fala ee kitaabka ilaahay raaca ee noloshooda ku saleeya axkaamta ilaahay iyo waxyigiisa. ayuha alcabdu lmuslim, arrinta noocaasiya si aada ugu dadaasho ma maqashay qowlka ilaahay uu yihi markuu arrintaa ka warramayey: ina aladiina qaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun. ma og tahay toosnaantad ilaahay diintiisa ku toosnaataa inay tahay dantaada iyo maslaxadaada iyo wanaagaaga iyo horumarkaaga iyo noloshaada wanaagsan adduun iyo aakhiraba. ayuha alcabdu lmuslim, ma go-aansatay inaad ka mid noqoto min cibaadi illaahi almuttaqiin, addoomaha ilaahay ee taqwada ku sifoobay oo nuxurkeedu uu yahay diin ku dhaqan, adiga oo naftaada u sheegaya ilaahay soomka xikamka xikmadu u waajibiyey inay ka mid tahay addoomuhu inay ka kasbadaan toosnaan iyo diin ku dhaqan iyo alla ka cabsi. yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun. ma og tahay yaa cabdallah, ma xusuusan tahay haddaad ilaahay ka baqotaa diintiisa ku dhaqanto oo ilaahay qowlkiisu uu ku xidho inaad ka mid noqonayso kuwa dhaxla jannada, weliba firdowsa dhaxla. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi markuu jannada ka warramaya: tilka aljannatu alatii nuurisu min cibaadina man kana taqiya. ayuha alcabdu lmuslim, ma go-aansatay inaad bisha ramadaan ka mid noqoto kuwa ilaahay in badan xusa ee rabbi subxaana wa tacaala in fara badan barya, adigoo ku camal falaaya raadinayana ajarka lagu sheegay qowlka ilaahay uu yihi: wاdhaakiriina allaha kaiira wاdhaakiraat acadda allahu lahum makfirata waajran cadiima. adiga oo naftaada ku waaninaya qowlka ilaahay uu yihi: waqaala rabukum udcuunii astajib lakum. rabbigiin wuxuu yihi barya, ducada waan idinka aqbali doonaa. adoo ku dayanaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo xaalad walba ilaahay xusi jiray siday caaisha sheegtay: kaana yadkuru llaha calaa kulli axyaani. adiga oo raadinaya fursadda qaaliga ee ku jirta bisha ramadaan, gaar ahaan qofku markuu sooman yahay, ee uu inoo sheegay nebigeenii muxamed oo rasuulku wuxuu tilmaamay: halaathatu laa turaddu dacwatuhum. saddex dadka ka mida baryada ilaahay baryaan waa la aqbalaa, lama celiyo. waxaa ka mid ah asaa'imu xataa yuftir, waa qofka sooman laga bilaabo markuu soomku u bilaabmo ilaa uu afurayo. fii jamiici nahaari ramadaan dacwatu saa'imi mustajaaba. maalinka ramadaan dhammaantii bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa qofka sooman baryadiisu waa mid ilaahay subxaana wa tacaala uu aqbalayo. ayuha alcabdu lmuslim, ma go-aansatay bisha ramadaan inaad sadaqad la baxdo oo waxa ilaahay ku siiye aada wax ka bixiso? waayo bishani waa shahru alcataa wa shahru ljuud. ilaahay baa addoomihiisa khayr badan ugu deeqay. taasi waa inay ku xusuusiso adiguna inaad wax ku deeqdo, camal saalixa inaad ku deeqdo, maal wanaagsan oo xalaalo ilaahay ku siiyeyna inaad ku deeqdo, adoo ku dayanaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo aha ajwad annaas, dadka ka u deeqsisan. xaaladdu ugu deeqsisayena waxay ahayd bisha ramadaan. ayuha alcabdu lmuslim, waad og tahay xaaladaha dhaqaale ee waddanka ka jira, dad fara badan inay baahan yihiin, kuwa qaraabadaada ka mid a, kuwa jaarkaaga ka mid a, kuwa muslimiinta guud ka mid a. waa xaaladii muwaasaad la samayn lahaa ee nafqaybsi ee qof waliba qaraabadiisa, jaarkiisa, dadka fuqarada ee masaakiinta, gaaraan kuwa aan had lahayn ee baahida la aamusan, waxa ilaahay uu siiye wax uu ka siin lahaa, isagoo yaqiinsan sadaqadaasi maalkiisa waxay ku kordhisa mooyaane waxba inaanay ka dhimahayn. suu yihi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam: maa naqasat sadaqatu min maal. sadaqadii maal waxba kama nuqsaamiso, waxba kama dhinto. sadaqada bisha ramadaan dhexdeeda la bixiyaana waa ka fadli badantay sadaqada waqtiyada kale la bixiyo. wuxuu inoo sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam: annahu man fatara saa'iman kaana lahu mithlu ajrih. qof sooman qofka afursiiya
inuu helayo ajarka kaa soomani soomkiisa uu ka helay mid lamida iyadoo qofkii soomanaa la afursiiyeyna soomkiisi waxba aan laga nuqsaamin. ku dadaal sadaqada waxbixinta, ku dadaal afursiinta dadka sooman. ayuha alcabd lmuslim, ma go-aansatay bisha ramadaan si ducada lagaaga aqbalo liyascada camaluka saalix ila allah, camalkaaga wanaagsani si uu xagga ilaahay ugu kaco oo albaabada samada loo furo. ma go-aansatay inaad la heshiiso walaalahaaga ayaa xumaan idin dhex taallo ee xumaan aad ku kala maqantihiin ama aad qalbiga wax isugu haysaan. hada shahru tasaalux ya cabd allah, si salaada lagaaga aqbalo oo ducada lagaaga aqbalo oo laabtaadu ay u ballaadhato cidhiidhiga ciilka iyo colaadaad walaalkaaga muslimka u haysay adduunye ka kacay u geliyey ay uga bogsato, si ay cibaadaadku kuugu dhadhamaan. ixris calaa dalika ya cabdallah, ku dadaal qof kastoo arrin adduunye aada isku maandhaafteen inaad la heshiiso, ilaahay daraaddi aad ula heshiiso. mubaadaradiiyo bilowga xaggaaga ha ka yimaado oo noqo khayr almutakhaasimeyn, labada muransan ee xumaani udhaxaysa ka khayrka badan. wa khayruhumaa aladii yabda'u bisalaam. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi labadaa qof ee isgooyey xumaantu ay udhaxaysay waxaa khayr badan ka isagu soo hor noqda ee salaanta bilaaba. ka mid noqoya cabdallah addoomaha ilaahay uu ammaanay ee uu yidhi, ama sida ilaahay addoomihiisa ilaahay uu amray uu yidhi idfac bilatii axsan, adigu wanaag ku jawaab. wanaag ku jawaabista waxaa ka mid a qofkii aada xumaan iyo dhibaato ka tirsanaysay adigu inaad u tagto aada la hadasho aad tidhaahdo war ilaahay daraaddii aynu heshiino aynu isu saamaxno. faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaanahu waliyun xamiim. ilaahay wuxuu tilmaamay arrintaa natiijadeedu inay tahay in labadaa qof ilaahay subxana wa tacaala wanaag u dhex dhigo oo laba aada isugu dhow oo saaxiibo fiican ay isu bedelaan intay colahaayeen dabadeed. ayuha alcabd lmuslim, ma go-aansatay bisha ramadaan khayr badan baa dhex yaalla iyo barakooyin, laakiin wax si fudud lagu helaayo ma aha. naftaada inaad la jihaadda ma go-aansatay oo naftaada aad ka guulaysato adigu aada hogaamiso oo mayalka aad u hayso, si ilaahay wadooyinka khayrka uu kuugu fududeeyo albaabadiisana uu kuugu furo. sida rabbi uhi waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana wa ina allaha lamaca almuxsiniin. kuwa naftooda daraadday ula jihaaday wadooyinka khayrkan ku hanuunaya buuhi ilaahay, waxaanay jihaadka iyo dadaalka nafta ay la dadaaleen ay ku gaadhayaan darajat lixsaan. ilahay baa jeclaanaya oo la jiraaya. aqulu qawlii hada waastagfiru llaha liya walakum. alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin, uma asalaatu wasalaamu calaa cabd illahi warasuulih wacala aalihi waasxaabih. ayuha almuslimuuna cibaad allah, arrinka labaad ee asal waa qofku bisha ramadaan kuwa guulaystay inuu ka mid noqdo ee ka faa'iidaystay ka qaniimaystay waa takhtiid litanfiidi maa cazamta calayhi min alkhayr. waa inaad qorshe u samaysato camaliya oo hirgeli kara waxaad go-aansatay ee khayr ah. diin iyo adduunyo midna guul lagama gaadho haddaan nidaam iyo qorshe aan loo samaysan. khatid lilacmaali asaalixa fi shahri ramadaan, qorshe iyo nidaam u samayso acmaasha wanaagsan bisha ramadaan. intaad naftaada la shirto gooni aada ula shawrto, maxaad doonaysaa inaad samaysato? inaad samayso oo wanaaga sidee u kala horeynayaan, wakhtiyadeebay kala yeelanayaan? arrinka saddexaada u dambeeya ee asal waa bisha ramadaan inaad ka faa'iidaysato waa inaad ogaato go-aamada aada gaadhayso iyo dadaalka aada bixinaysaa kelidii inaanu ku gaadhsiin karin wanaagga iyo waxa ku anfacaya, oo mar walba aada u baahan tahay kaalmada ilaahay. taana waxaa lagu helaa inaad ilaahay tala saarato oo awooddaada iyo xeeladaada aanad isku hadlayn, ilahayna kaalmo aada weydiisato. faqad qaala allahu subxaana faإida cazamta fatawakl calى allah. faqad jamaca allahu fi hadihi اlaaya bayna alcaziimati wاtawakul fahuma laa yaftariqaan. ilahay adda wuxuu ku kulmiyey go-aan fiican qofku inuu khayrka u yeesho
iyo inuu ilaahay tala saarto markuu wax go-aansado shaygaa fulintiisa iyo ku dhaqaaqistiisa iyo ka gungaadhistiisa ilahay inuu tala saarto. waqaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam ixris calaa maa yanfacuka wastacin billah, wixii nafciyo waxtarkule ku dadaal buuri rasuulku calayhi salatu wasalaam, ilahayna kaalmayso. falnastacin billah cala ficli lkhayr waliqtinaami shahri ramadaan walistifaadati min hadihi alawqaat almubaaraka. ugu dambeyn ya cibaad allah, waxaynu ku hambalyeynaynaa dowladdeenna go-aanka ay ku gaadhay inay qaadkii joojiso haba noqdo mid muwaaqatee. waxaan leeyahy jazakum allahu khayran. waxa aada go-aansateenna ilaahay subxaana wa tacaala ha idinku kaalmeeyo, ilaahay ha idin hirgeliyo, miisaanka xasanaadkana ilaahay ha idin saaro. waana waajib sharci ah in ummadda lagala dagaalamo waxa diintooda iyo dadnimadooda iyo naftooda iyo dhaqaalahooda iyo sharaftoodaba wax yeelaya. waxaan leenahay arrinkaa ilaahay subxaana wa tacaala u tala saarta oo awoodihiin iyo xeeladihiin oo qura ha isku halaynina. shacabkana waxaynu leenahay kunuu cawnan lidowlatikum wa xukuumatikum calaa maa cazamat calayhi. waxaad ugu kaalmaysaan shacabow dowladdiinna iyo xukuumaddiinna go-aanka ay gaadheen idin anfacaya ee waxtarkiinu ku jiro. qof waliba naftiisa ha ka bilaabo. kii cuni jiray ha go-aansada inuu iska daayo, kii iibin jiray inuu ilaahay daraaddi uga tago oo ganacsi kaloo xalaala uu wareego uu ku bedesho, kii gaadhigiisa ku qaadi jiray, kii meheradiisa ama goortiisa ganacsi ka kireeya cid iibinaysa, mid waliba go-aan fiican ha gaadho. ilahay baa hi watacaawanuu cala albiri waataqwa, wixii wanaagsan isu kaashada buu hi ilaahay subxana wa tacaala. hana ogaadaan shacabku wixii marka horeba waajib ku ahaa ee haddana dowladoodu ay fartay in waajibnimadiisu ay sii adkaanayso. ilaahay baa ina amray dadka madaxda inoo taliya inaynu ku adeecno wixii aan macsiyo ahayn. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi waaiicu llaha waaiicu rasuula wa uli lamri minkum, ilaahay adeeca oo rasuulka adeeca oo waxaad adeecdaan madaxdiina. wixii wanaagsane khayra lagu adeecaya. jaadka in lala dagaalamaa oo dadka cuno diintooda iyo dadnimadooda iyo caafimaadkooda iyo dhaqaalahooda iyo qoysaskooda iyo noloshooda diinad iyo ta adduunyaba dhibaato ku haya waa arrin wanaagsan oo ay tahay in laysu kaashado, ciddii fulinaysana in loo kaashado. qofka amarkaasi khilaafa faqad casa allaha warasuulah, ilaahay iyo rasuulkiisa ayuu caasi. gaadhigiisa ha ku qaado, askari sii daaya ha noqdo amarkii taliyayaashiisa khilaafa. meel goob lagu iibiyo ka kireeya ha noqdo, ka soo iibgeynaya ha noqdo, ka cunaya isticmaalaya ha noqdo. faqad qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam man ataaca alamiira faqad ataacanii. qofka ninka madaxda ee muslimka adeeca anigu adeecay, waman ataacanii faqad ataaca allah. qofka aniga ee adeecana ilahay buu adeecay. waman casa alamiira faqad casaanii. qofka amiirkiisa caasiya ee wuxuu amray fulin waaya anigu i caasiya. waayo amiirka in la adeeco yaa amray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wixii aan macsiyo ahayn. waman casaanii faqad casa allah. qofka i caasiyaana ilahay buu caasiyey. dadkii qaadka cuni jiray waxaan leeyahay, horta kuwii iibin jiray waxaan leeyahay, war ilaahay daraaddii uga taga, kuna bushaaraysta wax ka fiican ilahay inu idinku bedelayo. waata xadiida ku soo aroortay man taraka shay-an lilah cawadahu llahu khayran minhu. qofka shay ilaahay daraaddii uga taga wax ka khayr badan bu ilaahay ugu bedelaa. kuwii cuni jirayna waxaan leeyahay, laba fursadood buu ilaahay idin kulmiyey. fursadda koowaad waxay tahay inay dowladdii joojisay oo kale ugu yaraan cidhiidhi u geli doono oo arrinkiisu u adkaan doono, iyo inay idiin soo gashay bishii ramadaan oo fursad qaaliya ah oo qofku xaaladiisa uu ku bedeli karo, arrimihiisana uu ku hagaajin karo. oo marka horeba in badan oo cuntaa maalinkii ilaahay daraaddii ay uga soomi jireen. waxaan leeyahay hadday guuli idiin dhowdahay, go-aan gaadha, ilaahayna tala saarta oo ka faa'iidaysta fursaddaas oo sidaad maalintii uga soomi jirteen habeenkiina uga sooma. maalmay naftu u yara welhi doontaa, kadibna waa ka bogsan doontaa cudurkaas. ilaahayna barya subxaana wa tacaala. ilahayna waxaynu u weydiinaynaa qof kasta oo muslima
oo mukhadaraadka iyo balwadda iyo kuwa lamidka ilaahay ku imtixaamay ilahay inuu ka daweeyo, ilahay qulubtooda inuu ka jeediyo, qadhaarhkiisa iyo qarmuunkiisa iyo qashaanbuurkiisa iyo dhibkiisa ilahay inuu tuso, ilahay inuu go-aan fiican u yeelo oo ugu kaalmeeyo inay iska daayaan oo ilahay daraaddii ay uga tagaan. allahuma salli calaa nabiyina muxamed wacala ali nabiyina muxamed kama salayta calى ibrahima wcalى ali ibrahim wbarik calى muxamedi wcalى ali muxamed kama baarakta calى ibrahima wcalى ali ibrahima fi lcaalamiina inaka xamiid majid.